bal markane magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose balse intaan u guda gelin fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena kuwii ugu dambeeyay aynu soo gelino halkan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed oo gaaray magaalada Kismaayo ayaa la kulmay madaxweynaha talada haya ee Jubbaland iyo madaxdii hore ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo horey ugu sugnaa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxaana sidoo kale sawirka ku welinaya siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kamid ah madaxda sida weyn uga soo horjeeda xukuumadda Soomaaliya madaxweynaha Jubbaland oo Kismaayo ku soo dhaweeyay ayaa sheegay in ay farxad u tahay in madaxdii hore ay yimaadaan magaalada Kismaayo si ay uga qayb galaan calaamasaarka madaxweynahaasi oo isaga ah calaamasaarka madaxweynaha Jubbaland ayaa waxaa maanta u tagay Kismaayo wafdigii ugu badnaa oo isugu jira siyaasiyiin xildhibaano waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dowladda Soomaaliya ayaa hore ugu soo horjeesatay doorashadii lagu doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo muddo 10 sano ku dhow maamulaya talada dalka waa talada maamulkaasi dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in marnaba ay qali doonin waxayna magacaawday guddi ka kooban ama soo xiri doona xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland sidoo kale Axmed Madoobe ayaa taageero ka raadinaya siyaasiyiintii hore ee soo maray dalka isagoo oo markaasi doonaya in uu garab ka helo si ay dowladda federaalka Soomaaliya uga dayso dhibaatada ay ku hayso mar kale haddaad ku cusub tahay channelkeena subscribe saar